maanta federaalka ku jira oo xasan dadka ugu dhow ah ugu gacan dhow la taliyaashiisa ayaa Ottawa noogu yimid ninkaas asxaabaana waan casumay rag aan asxaabnahay baan u shiriyay oo magaalada jooga akhyaarta magaalada ahaa meel qada ah laba eray buu ninkaas ugu yiri anagoo dhan dadkii way joogaan fadhiyay laba eray buu nagu yiri labada eray marka dhuuxudid waxa kaaga soo baxaya siyaasadda xasan sheekh iyo jihada ay ku socoto labada eray nagu yiri waxay ahayd wuxuu yiri wixii Soomaaliya ka dhacay wixii ka dhacay waxa taa waxa halka idin keenay dalxiis umeeda amaana qaxooti baynuna ahayn waa soo cararnay wuxuu yiri wixii Soomaaliya ka dhacay waa in la wada yeeshaa macnaheedu sameynayso idinku fasirta erayga labaad uu yiri waxay ahayd wuxuu yiri ma dhacayso Soomaaliya meelana inay holcaan meelana inay horumar iyo nabad ku talaabsadaan ninkaas maanta waa wasiir waxa magaciisa sheegayo laakiin waxa idin sheegaya gacan yarayaasha xasan sheekh weeye oo wallahi magac ilaahay ku dhaaranaya siyaasadda noocaas marka dadka Soomaaliya maanta ku hogaaminaya oo Soomaaliya oo teedii la ku faadhaceysa wadamo kale interestigooda intayna dul keeneen islaanta xaabada qaadiyo saxaabada ku darsatay Puntland ma xamili karto markay Soomaaliya arrimaheeda engage gareyso in calad iyo najaaso na lagu abaalgudo marka maqannahayna